السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام أصحابتي ملك استودنا دافية دعت كجوتهم كسر هذا channel كاملة channel قام فرن يقلب فرن لبضبا وحرجينا يا سيدا أوصل نقني أنا كعفمات قمنا أوصل نقطين لكن كان هاد كعفمات قبا إن ما تحارب إنك كهلا إن أبل فينجر فايدوين كأولي هاي إن قلق بيها تفاحة أما قلق إن أنا كهذا ودن كأجوبنا مت كان يالو midka kale suurkiisa meeshaan aad soo saaraya isku shaqay qabtaan waa isku mid hadirtan Soomaalida sayid u isticmaalayaan marka dad badan ogeyn oo waxyaabaha oo qabto iyo maxay doon waxyaabaha oo taro aan ogeyn dadkaas raba ina maxay doon u sharaxo marka soo dhawaada faa'iido fara badan uu leeyahay marka inta ka gaarnaa sheegayna insha Allah horta بيان قلك هذا أي كوسك ملعبه هذا أي كوسك عبتد الكها إنك وحيليان على عوام فهمتي مركب حال سمينا يكون هرت مركب عبيسد وحسمينا سا جلسة بيكسر شو بنسا هل قادو ولا بقادو وبيها قلك أنا كوشو بنسا وعبيس بحوارته لكن سهدي أو محيه توني أو بيها كبرتو إنه دلانك بتاعي عبا فايدون كولي حواي فايدوين oo wuxuu leeyahay oo caafimaad iyo faa'iidooyin weight loss oo dadka maxay haatoonay rabo in cayilka iska ridaan barurta iska ridaan oo kaleeto aad iyo aad u anfacado cuntadaada aan iska jarin oo wuxuu ka saacidayaa inuu weight-ka ka yareeyo muhiimadda ugu weyn horto weight-ka uu ka ridaya laba wuxuu kaloo sameynayaa garaaca wadnaha sare u qaadaya oo wuxuu ka dhigayaa maxay haatoon caafimaadkiisa wuxuu ka dhigayaa high wuxuu kaloo sameynaya dadka wuxuu aad iyo aad u caawinaya dadka wajiga nabraha ku leh oo kaleeto oo agniska uu caawinaya haday nabarkaas oo bixi jireen oo kaleeto wiika baayan dadka qaar xataa marka ay sameysanayaan maxaa la dhahay maaska ay wajiga marsanayaan wax yar lagu darsadaa wajiga waa la marsadaa cabitaanka ay cabaysid xataa wuu ku anfacaya hadaa cabtid jirka sunta jirka ku jirta xataa wuu ka saaraya faa'iidada kaloo leeyahay waxa waaye maxay doonay black pressure-ka hoos u dhigaa oo uu xakameeyaa wuxuu kala sameeyaa sokorta kaleeto dadka sokorta qabo aad iyo aad asagana ugu fiican yahay sokorta jirka sokortiisa inuu balance gareeyo isku dayaya sokorta jirkana uu balance gareeyaa waxa uu kale oo sameynaya waxa waaye in maqaarka jirka uu qurxinaya qofka marka uu cuno maqaarkiisa wuxuu noqonayaa maqaar shaanina oo ifaayo noqonaya wuxuu kale sameynaya maxay doonay wuxuu kaloo sameeyaa aad iyo aad ugu fiican yahay cholesterolka dadka cholesterolka qabeeto oo dufanta jirkooda ku jiro ama dhiigooda dufanka uu ku badan yahay oo kaleeto haddii uu cabo uu ka saaraya dhiigoodana wuxuu ka dhigayaa mid nadiif ah beerka uu sifeynaya wuxuu kaloo sameynayaa timaha oo kaleeto qofka hadduu timaha ka gogo-ayaan timaha is usoo bixeen oo kaleeto timaha wuxuu uga dhigayaa kuwo oo maxay doonay aflaaqa aan lahayn oo sheenin oo qurux badan uga dhigaya wuxuu kaloo oo taraa ilkaha dadka oo kaleeto ilkaha uu cadeeyaa laakiin se horta seeko asu ah isku cabinin hadaa seekaas oo isku cabtay ilkaha uu ka xanuujinaya laakiin sida kaloo ilkaha uu cadeeyaa ma fahanteen marka faa'iidadiisa mid wuxuu kaloo sameynaya dadka ilkaha ku nadiifsanayaan oo kaleeto waxaa la sameeyaa weel yar lagu shubaa biyaha ku shubaysaa biyo markaa ku shubto geedka ilkaha kula cadaysato ku dare ilkaha ku cadaysana ilkaha nadiif u noqon dadka oo wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay ilkaha gaduudka uga dhigo kaleeto iyo dadka ilkaha maxay doon shaah badan intii caban ka dhaqi waayeen oo kaleeto dadkaas aad iyo aad ugu fiican yahay wuxuu kaloo aad ugu fiican yahay kansarka oo ka ilaalinaya jirka inuu kansarka soo galo kaleeto uu ka ilaalinaya wuxuu kaloo qabanaya maxay doonay nadaafadda kaleeto hadda meel hadaa wax wasaq iyo waxaas ay kaaga dhacan maxay tan wuu nadiifinaa maqsi geedka oo magaciisa wuxuu ahaay oo alaabta lagu dhaqo kaleeto haddii aad ku shubto wuxuu noqonayaa dhalo cadaan oo noqonaya sidaas oo kaleeto jirkaadan wuxuu uga saaraa wax alaal wixii wasaq ah oo jirka soo galo wuu nadiifinaya fahantay marka faa'iidooyinkiisa faa'iido la soo koobi kara ma ahan laakiin inta aan ka gaarno aan ka sheegaynaa weight loss-ka marka aad u isticmaalaysid xataa haddii aadan rabin inuu maxay doonay jirka kale uu ka dhamaan oo rabta caloosha bis dad waxa jiro inuu jirka kale oo caadi u yahay laakiin caloosha inay iska jiraan oo rabaan oo kaleeto aad iyo aad u caawinaya oo caloosha uu ka jaraya
jirkaada kale ku joogo xataa markaa rabtid cayil qurux badan in cayilnaatid oo saaid aad u daada cuntadaada aad u cunaysid kana waa cabaysaa subaxii markaa soo kacdo waxaa ku shubanaysaa galaas kadibna galaaska waxaa ku shubanaysaa 2 qaado oo biyo ah iyo asaga jablin dhanaanna dadka qaar way ku darsadaan adiga haddaad ku darsatid dadka isku mid ma magta dad dhanaanka jecel yihiin dadna ma jecla dhanaanka adiga haddaad dadka dhanaanka jecel dhanaanka waxba ka dhibeynin 2 qaado kan ah iyo galaas biyo ah waxaa ku shubanay jablin dhanaana kadibna waa cabay caloosha si degdega result waxaa helaysaa oo inaba caadi ahayn laakiin haddaa dadka dhanaanka uu ka cabsado wuu ku anfacaya asagana liin uma baahnaa karo oo galaaska iyo 2 koob oo 2 qaado qalka ah iyo maxay doonay galaaska biyaha ah waa uu ku filan yahay intaas oo maxay doonay miisaan wuxuu ka ridayaa oo halkan xabada dhamayso miisaan wuxuu ka ridayaa inaba caadi ahayn